والله هيو وايو واول ولا حي الله abaarta ka jirta qaybo kamid ah dalkeena waxay si weyn u saameysay dadka iyo dunyada roob la'aanta wadankeena ka dhacay sanadii la soo dhaafay waxay keentay in dadka iyo dunyada ay si weyn u taabato abaartu kubanaan qoys oo kamid ah bulshadeena ayaa la halgamay halista adeegyada aasaasiga ah sida cuntada iyo biyaha cagaaran oo ka tirsan gobolka mudug kana mid ah deegaanada saaran laamiga iyo ciidanka gaarka ah ee dowladda Puntland BSF waxay gaarsiiyeen deeq raashin oo lagu talagalay dadka danyarta ah ee abaartu ay saameysay muslimiin iyo ciidan ay kusiinayaan raashin ciidankuna waa ciidankaygii oo weligiis noo adeegayay waxaanu leenahay horta marka koowaad ciidanka kor Allah yeelo waxa la wixii dhibaho ku soo aadana Allah ka nabadgeliyo muraadka ay leeyihiin muqabil Allah ka yeelo ciidanka Ilaahay muraadka leeyihiin waa kaanu leenahay muraad kale ma dalka iyo deegaankana nin labisan oo askariya oo xaqiiqo u shaqeynaya ayaa hanan kale nin kale ma hanan karo wax badan baan jeclaa inaan raggiinan madaxda oo difaaca dalka inaan la kulmo inaan arko inaan u duceeyo wax badan baan jeclaa ilaahayna maanta uu ikiin keen waxa weeye waxa dalka iyo deegaanka aad ugu toorantiin baan aqaana waxaad mudantiin baan aqaana waxaad nootiin baan aqaana waxaad ku dhimanaysaan baan aqaana waxaad ku nooshiina waa aqaana waxa weeye wiilashayadii baatiin kor Allah idinka yeelo cadawgana Allah idinka qabto cadawga mid dheer iyo mid dhow Allah idinka qabto balada adduunyo balada aakhir Allah idinka ijaab gacantiina iyo gurmadkiina Allah koriyo garabkiina Ilaahay waxaan ka bari inayna garabkiina inayna ka kicin Ilaahay waxaan weydiistay balaayo dhamaanta Ilaahay idinka nabadgeliyo difaac adag Allah idin gasho difaac adag Allah idin gasho difaac Allah idin gasho midka awliyada Allah idin gasho Ilaahay waxaan ka bari balada adduunyo balada aakhir iyo sababaha Ilaahay inuu ka nabadgeliyo caafimaad iyo cimri dheer aad ku waartaan oo ku shaqaysataan oo ku noolaataan oo dalka ku difaacdaan gacantiisa midagta Allah idin gasho maalka Allah idin galiyo oo moorada Allah idin galiyo oo madaxa Allah idin galiyo oo mijaha Allah idin galiyo oo dhiigga Allah idin galiyo oo dhaqanka Allah idin galiyo oo dhismaha Allah idin galiyo Ilaahay waxaan idin ka bariyay inta la idin ku kari waayo برتير أن شبين وأن لعن وأن قلوعان الله يدين كدقو واتين الله يني سياسش واد كسبتين الله يني سياسش واتين الله يني سيادي إلهي وحان كبري ترحان إلينا يالن إلهي وحان كبرش قوش قلب كين إنيس كبحن قوش قلب كين كابحضو حليه نسالح الله يدين كدقو أولادنا سعيد الله يني كدقو كان حيلها يسمد خير ربط الله سي مد سعيد الله يسي مد أبد دعي الله ينسي mid hooyada duceysa Allah inasi ilaahi waxaan ii weydiistay difaaca dalka ku jira awlaad laan in dalka uga tagin awlaad laan dadka in uga tagin inaad awlaad uga tagtaan inaad xilo saalax uga tagtaan inaad magac uga tagtaan inaad muuqaal uga tagtaan inaad madaxnimo uga tagtaan ilaahi waxaan weydiistay balaayo dhamaanteed ilaahi inuu ka nabadgeliyo Allah inuu ka nabadiyo balaayo dhamaanteed turxaan ilaahi idin ma yeelo ilaahi waxaan idin ka bari cadowga mid dhow iyo mid dheer ilaahi inuu ka nabadgeliyo badlan hal mid oo taagan Allah ka dhigo hal biro taagan Allah ka dhigo turxaanta Allah ka saaro qabiilaysiga Allah ka saaro sheegsheega Allah ka saaro kala yaaca Allah ka saaro ilaahay baan idin ka bariyay kuwii jiri doona Allah idin ka dhigo kuwii jiri doona Allah waad naafacdeen kuwii wala waad naafac Allah idin ka dhigo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale kadib waxaan u mahad celinaynaa ciidamada BSF ee difaaca iyo xuduudda Puntland waxaan leenahay ilaahay mahadahani ka gaadho waa la idin duceeyo bulshada reer cagaaran bay ahaayeen wixii idin duceynaya ducadana Allah idin aqbalo annagoo maamulkoodii iyo mas'uuliyiintoodii waxaanu leenahay waa mahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa waxa aanu halkan u wada joognaa oo aan isugu nimid oo aad u jeedaan waa raashin mucaawimaad ah oo ciidamada BSF ay keeneen oo bulshadoodii ay daafaca ugu jireen oo dhaxanta iyo buuraha ay u saarnaayeen ay u keeneen midkaasoo aanu xaqiiqsanahay
in ay salarigooda iyo mushaarkooda ay ka gadeen dadkana ay ka gaarsiinayaan oo ay uga caawimahayaan waxa alxamdulilaahi oo ilaahay loogu mahdiyaa ciidanka noocaan oo kala dhiigiisii iyo dhaqankiisii iyo dhididkiisiiba isku darahaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa looga mahad celiyaa waxaan leenahay ciidamada BSF waa mahadsan yihiin waa la idin duceeyo ducadii Allah idin aqbalo mana ahan markii koobaad oo ciidamada BSF ay timaado deegaanka cagaaran ama ay soo gaarsiiyaan deeq rabbi baa deeq hayee awoodooda iyo karaankooda oo ay salligooda iyo bushaarkooda ay ugu tala galeen in ay bulshadooda wax ka gaarsiiyaan oo ay ka caawimaan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba inaad soo noqotaan oo deegaanka cagaaran aad wixii aad markaa u qoondayseen oo karaankiina aad u keentaan oo aad soo gaarsiisaan waa ku mahadsantihiin hadday biyo ahayd iyo hadday dhiraantii deegaanka ahayd iyo hadday qorshayaal kuwan ka horeeyo anfaca ay ahaydba horay bay noogu yimaadeen waxna noo soo gaarsiiyeen saakana waxay noo keeneen raashin 8 qoys oo laaban loogu tala galay aanu u qorshaynay oo burkii iyo bariiskii iyo sonkortii iyo saliidii iyo caanihii iyo timirtiiba leh waa ku mahadsanyiin ilaahay mahad ka gaadho waanu ka mahad celinaynaa waxaanu leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa la idin duceeyaa annaguna waa inuu ducaynaynaa bulshada aanu mas'uulka ka nahay baa inuu ducaysay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dadka reer cagaaran iyo maamulkooda salaan kadib saaka halkan waxaan u nimid shaqo iyo raashinka yarka oo gurmadkii abaaraha aan ugu talagalay oo ciidanka BSF uu u qaybinayay dadka waa ognahay waddankeena abaar daran jidho baahi badan jidho xaaladdu ay adag tahay intaanu aysan ku filayn dadka laakiin weli waa soo wadnaa kamana daalayno dadkeenna inaan dhaqaalayno iyo inaan u gurmanno iyo inaan difaacno intaba arrintu meel walbay ka socotaa bari bay ka socotaa gobollada dhan bay ka socotaa karkaar bay ka socotaa diyaar lagu soo magol yahay nugaal bay ka socotaa ciidanka BSF meel kasta uu joogo oo dadka Soomaaliyeed joogaan waanan ka shaqaynaynaa waanan caawinaynaa dadka arrimihii dib u heshiisiinta iyo haddii ilaahay kuu soo magol yahay dadku inuu isdhex galo iyo nabadgelyadii howlahaasna gees bay ka socdaan dagaalkii iyo xorayntii iyo cadowga in lala dagaalamo gees bay ka socotaa magaalooyinka in la dhireeyo gees bay ka socotaa waxaan haysanaa inaan dadka wax ka siino gees bay ka socotaa waa wadaynaa waa siin doonnaa waa garab istaagi doonnaa dadkeenna cidna uga haybaysan mayno oo daba fariisan mayno inaan dadkeenna wax tarno iyo inaan difaacno waana mahadsantihiin waa idin salaamaya